بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. داودياشا قيمها يقاياها مدن ميول بوجوكتان وحالدينكم السلامين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن محمد إبراهيم ويدين وذا حلقة من حلقوينك أين إن شاء الله اسكو أركدونه إنه حكبرنا إن دينتين حكيمك وبرنامج كان إيش عاشقة وعاو أين الراعي إنه دوني ذا شعيلك. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهل ذلك السناتي عاو حنا نجوا قلبه ولا لهنا ومد الصومالية كذا شيء وخبير كؤه دعوة حاجات تقوليها وفضيلة الشيخ أحمد جوهري بلال يا مرودي سا هو هبة عمر قيله وحنقصد دواء برنامجكم حلي أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير ودونا هاي بارك الله. حياك الله. ما شاء الله انتنا هرت برنامجك وجود بين وحجرت سؤال آدي ولا لبضن أي نوسويدين شيخ أحمد إيو هبو أنا وحن كمل هاي أمد الصومالية وإذا يقارنوا مقالة المدة إذا لدقنا لكن وحجرت ولا أنا إذا أقون وحي آدي أبو أركان عشرة فيديو أو فايرال نقضي إن على فيسبوك إن على تلفزيون هذا عالمي أمد الصومالية أي لقد هذا لوسو دايو dad badan waxay isweydiinayaan Axmed Jawhari iyo Hibo walaal Hibo ma laba qof oo sida Hollywoodka arrintan jilayaba oo cilmi ahaan u bartay mise waa laba qof oo ay dantii guurka ka dhaxayso lamaana ah marka su'aashaas bar ummadda islaamka ee Soomaaliyeed qaar badan ayaa isweydiinaya arrintaas maxaad ka jawaabaysaa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أبو أحمد أبو إجابة أبو كان مهد أدنيا ورئيسكاس ولا لا سوديا ريودنا ونقوم أدنيا runtii inaan kala faa'iideysano oo ummadeenna u faa'iideyno waa waajib nasaaran waana ku faraxsanahay runtii la kulanka aad maaragtay aan wada kulannay maaragtay ay wada sheekaysanayno caawa su-aashaada haddaan soo jeesto waxa weeyaan runtii dad badan baa ku wareeray saad sheegaysid oo isleh labadan qof ma isqabaan ma barnaamijkoon bay soo jeedinayaan maxay yihiin maanta ugu dambaysa 2 jeer ayay su-aashaasi la kulmay gabdho ka yimid magaalo Coventry la yiraahdo waxay ugu tiray gabadhi ummad dhan oo isku haysato Ilaahay dhex keenay marka aniga ka marqaati kacay inaad isqabtaan oo reer tihiin oo lamaana aad tihiin gabadh kalena waxay ugu tiri maad aragtay magaalo Bristol la yiraahdo ayaan joogaa magaaladii waa la isweydiinay runtii aad baa la isku weydiinay marka si uu shikigaas iyo wareerkaas ummadda uga baxo aniga iyo Axmed 2 qof oo reer leh oo maaragtay isqaba oo wada nool oo Ilaahay ubad ku arsaaqanahay barnaamijkana soo jeedinaya ummadana u faa'iideynaya runtii nafuhoogana ku badbaadinaya ku ilaalinaya ummadana maaragtay waajibkii ka saarnaa ka dhigtay inay u noqoto walaal Axmed jazakallahu khayr. بارك الله فيك يا عمر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو إجابة runtii su-aashu waa su-aal muhiima walaalaha qaarkood way noo sheegeen oo waxay yidhaahdeen marka maxaan ku idhahdaa telefishinka aad fadhidaan barnaamijka soo jeedinaysaan wariye iyo qof la wareysanaya ayaa laydin wadaa marka mararka qaarkood baa dhacda inaan gacan saan usoo jeediyo marka waxaa aragnay yidhahdeen wadaada dhahay wadaadkan una xishoonayn gabadha gacanta gabadhan barnaamijka la wada ها تابسيني marka waxaan walaalaha u sheegaynaa la wadaagaynaa sida dabcan walaasheen hiba ay sheegtay waxaan nahay lamaane isqaba wada nool wada degan ilaahayna caruur ku arsaaqay sanadkan 2016 kana waxaan rajaynaynaa inaan xusi doono bilaha soo socda 20 jirkayga ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله marka 2 gabdhood oo qurux badan ilaahay nagu arsaaqay raxmiyo nasra la yiraahdo marka barasho wanaagsan ما شاء الله أهلا وسهلا مرحبا بكم. شيخ أحمد برنامجك إيش التعايلك أو إيش عاشق حيا ربنا بنا إن شاء الله إن كبرنا دونا سؤال أيات شرت أي ضد كل لفت الكل أي أديات سوي دينيان أنا قلت لنا سوي دينينه وحين ربنا إن برناه تعايلكم حيا هرت متشلا مركهار وحين تعلم مناقشون
oon la gudagelin oon la baarin waa inaan ogaan horta waxaan wax jira ma yahay mise waa mala awaal bani aadamku ay hawadooda kala yimaadeen tafadal bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay waa mahad subxaana watacaala marka xigtana waxaan aada kaaga mahad celinayaa abu axmed iyo walaalaha runtii injineer cabdinaasir iyo injineer maaragtay jaamac barnaamijkaan aadka u qurux badan le aad soo hindisteen aad nagu soo casuunteen marka sharaf bay noo tahay annaga inaan caawa halkan idinla joogno oo maaragtay barnaamijkaanan ummadda walaalaheena aan la wadaagno inta ilaahayna garansiiyey su-aashani hadda ka hor baan kaga jawaabnay sweden annaga oo joogna oo bixinayna seminar waxay dadku aada isku weydiiyaan wax jacayl la yidhaahdo ma jiro iyo jacayl wuu jiraa mar qofku waxaa fiican horta in uu inta uunan inkirin ama uu qirin in uu raadiyo asal maleeya waxani innaga waxaa inoo ah meel aan u noqono sal ama maxaan ku dhahday marjic waxaa inoo ah maadaama dad muslimiina aan nahay kitaabka qur-aanka ah iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dabcan labadaa waxaa soo raaca majmaca culimmada waxa ay ka qoreen dadku marka waxaan odhan karaa runtii haddii aan ka jawaabo ilaahay qur-aanka kelmadda alxub la yidhaahdo waxay kusoo aroortay 70 jeer ka badan yacna 70 times and above times ayay qur-aanka kusoo aroortay iyada oo wejiyo kala duwan ku imaanaysa yacna mar iyada oo laga hadlayo inuu ilaahay jecel yahay addoomihiisa saalixiinta ee wanaagsan yacna inuu ilaahay jecel yahay dadka fiican inuu ambiyadiisa jecel yahay inuuna ilaahay jeclayn kuwa dhaalimiinta ah dadka dulmaya yacna noocyo kala duwan meelo kala duwan ayay kelmaddaa soo gashay laakiin kan markaan u imano hadda waa kalgacayl ama waa jacayl ka dhexeeya laba qof oo bini aadan ah oo ilaahay uu abuuray oo dhidig iyo laba la yidhaahdo marka jacayl ma jiraa waxaan odhan karaa maadaama ilaahay qur-aanka uu ku sheegay oo rabbigiina abuurayba uu qur-aanka ku qiray macnaheedu wuu jiraa marka ilaahay wuxuu leeyahay zuyina linnaasi xubu shahawaati waxaa ku xiga min annisaa'i baa laga bilaaba zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa yacnaa haweenka in la jecelyahay inay raggu haweenka jeclaanayaan sida oo kale waxaa ku jirta haweenkuna inay ragga jeclaan karaan walidaalika waxaad arki markuu ilaahay ka warramayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo boqoradii maxaan ku dhahday wasiirkii gurigiisa markuu joogay ilaahay wuxuu yidhi qad shaqafahaa xubba waxa qaaday kalgacayl baa qaaday jacayl shaqaf baa la dhahaa yacna hamuum joogsi la-aan waa darajooyin kala duwan oo jacaylka lagu tilmaamo dabcan ibnu qayim ayaa runtii aada uga sheekeeyey oo kala dhigdhigay waxaa markaa meesha ka muuqata qofka in uu ilaahay geliyey dareen jacaylku marka waa dareen waa baahi wuxuu u baahday oppositeka qofka kale kasoo horjeeday ee jinsiga kale ah ayuu u baahan yahay marka wuxuu sidaa qofka kali wax uunan qofkani haysanin oo markuu qofka uu ka helo uu ku dharkay taasaa marka dabcan lagu macneeyaa jacayl suugaanta soomaalidana si fiican ayay maaragtay uga hadlaan oo intaasoo gabay ayaad arki oo kusoo arooray jacaylka bal qaarkood way sii macneeyaan waxa la jeclaanayo sida loo jeclaanayo alxamdulilah anigu waxaan ku darsan lahaa runtii jacaylku ma jiraa mise ma jiro haddii su-aashu tahay in jacaylku uu jiraa waa wax jira ilaahay baa noo sheegay in ilaahay maad aragtay kownkan oo dhan xubbiga ilaahay iyo naxariista ilaahay ayaan ku joognaa lowlaa uu ilaahay la jeclayn runtii
oo maaragtay daacadiisaas iyo nimcadaas maynaan ku jirnayn. waxaa kaloo jirta walaalayaal jacaylku waxa weeyaan wuxuu leeyahay jidhkaaga ayuu ku abuuran yahay. maadaama jidhkaaga ku abuuran yahay ilaahay wuxuu ku siiyey dareenno waqti qaarkood markaad soo gaadhid da' qaarkeed markaad soo gaadhid oo dareenka aad yeelanaysid. dareenkaas muxuu keensanayaa in qofkii kale kaasoo horjeeday oo oppositekaaga ahaa oo maaragtay ilaahay kuu abuuray inaad u baahatid, inuu kusoo jiito, inaad indhaha la raacraacdid, inaad raadisid, in maaragtay waxyaalo badan ay kaa cajabiyaan, adigana baa isbedelaya. marka jirkaaga waxaa ku jira hormoono dareenayaal keensanaya in markay helaan wixii ay u baahnaayeen, markay helaan marka reaction baa dhacaya. reactionkaas ayaa wuxuu sameynayaa in aad jeclaatid qofkii. 10 darajana waa loo kala qaybiyaa jacaylka. waxaa la yidhahdaa 4 darajada ugu horeysa, 4ta ugu horeysa qof bilaadana wayna dhex mari karaan. 6da dambe waa jacayl aad ilaahay iyo rasuulkiisa aad u qaadaysid. marka jacaylka caynkaasa waa jacaylka keensaday inay asxaabtii ay noqdaan in maaragtay iyagoo salaad ku jira lugta laga gooyo oo camaliyad ay galaan. waa jacaylka keensaday in maaragtay ilaahay dartii ay u dhintaan. waxyaalo fara badan ay u sameeyaan runtii. marka jacaylku walaalayaal u jira waana wax lagu noolyahay. qofka bil-aadanku maalintu caloosha hooyadii kasoo baxay baaba jacayl loo qaadayba ya maalintaasoo aba la jeclaaday. marka jacaylkaasu waalidku ku korinayaa. handara wuxuu u gudbayaa jacaylkii qofku la noolaa oo lamaanihiisa ah. handara wuxuu u gudbayaa jacaylka ubadkiisa hadduu ilaahay ubadku arsaaqo. handara faamiligii oo sii ballaadho oo waasica. runtii bil-aadan iska daaya xoolaha makhluuqa dhan baa jacayl u baahan. makhluuqa dhan ayaa jacaylka ku nool oo u baahan. waxa weeyaan sida oxygenka u qaadano inaan u qaadano ay tahayna weeyaan walaalayaal. marka waxaan leeyahay anigu 100% u jiraa insha Allah kaliya waxa loo baahan yahay in la soo saaro oo la muujiyo oo maaragtay la istuso baa loo baahan yahay. waxaan isleeyahay haddii aan ku yara noqdo waxyaabaha runtii sababta keentay in la isweydiiyo ayaa waxaa dadka qaarkoodna way la-yihiin oo maadaamay waayeen waxay aamineen inuuna jirin wax jacayl. yacna maalan inta badan jacaylka iyo waxaa isku xidhan raxmadda iyo naxariista. maxaa la qofaad jecesha waad u naxariisataa, qofaad jecesha waxbaad siisaa, qofaad jeclayna waxba ma siinaysid, waxba igama gelin baad leedahay dhowrka liiska kuguma jiro. waxaa jirta marka aayadda qur-aanka markaan u fiirsano yani dusha unbaa inta badan laga mara. suuratu ruum ku jirta ilaahay uu ka hadlayo bini-aadanka in uu kalgacayl u dhex dhigay. wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fi dalika laaayatin liqowmin yatafakkaruun. wajacala baynakum ilaahay wuxuu dhexdiina dhigay. marka aad cilmiga aada la aado biology oo aada fiiriso muxuu ilaahay kugu abuuray jirkaaga iyo waxay noo sheegtay hormoon dheecaan baa jirkaagu soo daynaya, maskaxdaada soo daynaysa. dheecaankaasi waxay kaa dhigaysaa dabcan in aad wax xoogu jeclaato oo aad rabto oo aad doonto oo aad ka joogi weydo ilaa intaad helaysid. qaarkii waxaa la yidhahdaa underlanin. runtii yacna wuxuu ku gelinayaa inaad aad u rabtid ama mararka qaarkood cabsi buu ku gelinayaa inaad aada uga baqdi wixii yani inaad excited noqotid oo ka durugtid. labadii marka hormoonada ilaahay kugu beeray bay aayaddaasi sheegaysaa. labadii qof marka attraction baa jira, wax isku soo jiidaya oo yacna magnet ayaa jira. da' markuu soo gaadho su-aal kale oo waxaa jirta lanagu weydiiyey finland oo la dho jacaylku daa'imi karaa mise uu baabi'i karaa haddii uu kaa burburo ama uu qaboobo ama uu da' iyo waqti soo gaaro baaba-aba ma baabi'i karaa jacaylki. marka runii xalaqaad hore aan kaga hadalayaa jira. wax walba wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo, la dhiso, la dhowro, la joogteeyo, la xanaaneeyo. nabigu wuxuu yihi calayhi salaam aliimaanu yaziid wayanqus. iimaankii dhannaaye daaficii dhannaaye ku siinayay in aad cibaadadii ilaahay aada caabuddo rabbigii ku abuuray ayaa waxa la marna uu koraa marna uu dhacaa.
muxuu ku koraa uu noo sheegay nabi sallallahu alayhi wasallam muxuu ku dhacana uu noo sheegay saas oo kale qofka aad jeceshahay waxaa jira wax dilaya jacaylkiisa inuu qofku ku jeclaado waxbaa ka keensanaya marka casharadan runtii aan ku bixinaa duruusta 12 cashar ah waxaa jira cashar la yidhaahdo casharka labaad oo the chemistry of love marka wax badan baan arrintaas aan aad u weyn بارك الله فيكم جزاكم الله خير maadaama sheekh axmed iyo walaal hiba uu jacaylku saa u jiro qiimo badan leeyahay qur-aanka lagu sheegay sunnada uu ku aroorsan yahay meel dhinacba naga taagan yahay sidee baan ku ogaan karaa qofka lamaanaha ah uu jecel yahay aan badanaa qofku wuxuu isweydiiyaa qofkan ku jecel yahay qof waxa jira aan gudbin karin oraahdi oo gudbin karin aan inuu ku jecel yahay laakiin adigu ma physical u dareemaysaa emotional u nacam sidee baa u dareemay qofkan aan inuu jecel yahay